السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan rabaa inaan maanta halkan idinkula wadaago muuqaalo tutorial oo serious ah kuwaas oo aan uga hadli doono sida crypto exchange ay u shaqeeyaan. Ka hor inta aanan aadin muuqaalkeena tutorialka ah, marka hore waxaan ka sharaxno waa maxay crypto exchange. Crypto exchange waa platform digital ah kaasoo kuu suuragelinaya in lacago crypto aad soo iibsato ama aad ku sii iibiso. Sidoo kale platformkan wuxuu kuu suuragelinayaa inaad ku maalgashan karto lacagaha kriptada ah oo aad u isticmaali karto as investment. Crypto exchange waxaad kaloo u isticmaali kartaa inaad ku kaydsan karto lacagahaada sida haddeerba bangiyada caadiga aan ugu kaydsan lacagaheena si lamid ah ayaa lacagaha digitalka ah ayaad ugu kaydsan kartaa crypto exchange. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad soo iibsato lacagaha loo yaqaano stable coins oo aan isbedbedelin sida USDT, USDC iyo wixii lamid ah. lacagahaas oo inta badan aan lahayn fluctuation yani isbedbedel badan aan ku jirin oo ah mar walba kuwa stable ah. Crypto exchange waxay u shaqeysaa sida broker oo kale oo waxay ku sameynayaan facilitation fara badan. Muuqaaladan dambe aan ku sharaxi doonaa qaabka aad u isticmaali lahayd ujeedooyin kala duwan ee loo isticmaalo kriptada ama exchange waan arki doonaa. Marka hore intaadan account ka furan crypto exchange waa ku muhiim inaad ogaato imisa nooc ay u kala qaybsamaan crypto exchange. Crypto exchange waxay u kala qaybsamaan laba nooc oo waaweyn. Haddaba maxay kaliya labada nooc? Nooca koowaad waxaa loo yaqaanaa centralized exchange oo loo soo gaabiyo CEX iyo decentralized exchange oo loo soo gaabiyo DEX. Haddaba centralized iyo decentralized labada nooc maxay ku kala duwan yihiin? Maxay tahay farqiga u dhaxeeyo? Keebaa fiican? Keeb adiga kugu habboon? Markii aad daawato muuqaalkan haddaba waxaad go'aan gaari kartaa labada nooc inaad qaadato midka ku habboon adiga. Aynu ku bilaawno kan ugu horeeya number 1 waa centralized exchange. Centralized waa exchange inta badan ay maamulaan organization kaasoo userka ama isticmaalaha under control uu yahay dhammaan fundskiisa, transactionka iyo private keys intaba la maamulaya oo wala la socda. Private keys iyo public keys markaa waxaan ka sharaxno sidaba exchange-yadu ama ha noqdaan centralized ama decentralized labadaba waxay wada leeyihiin private key iyo public key. Public key waxaa laga wadaa furaha lagu talagalay publicada aad share gareyn karto aad faafin karto. Tusaale ahaan addresska lagu soo dir lacagaha kale waa public key. Haddii qof uu ku yiraahdo ii soo dir addresskaada si lacag aan kugu soo diro waad la share gareyn kartaa. waayo kaliya wuxuu awoodi karaa lacag inuu kugu soo shubo only. Laakiin private keys waa codeska ama passwordska aad u isticmaali lahayd inaad ku maamulato account-kaada si aad uga tiragreeso ama lacag aad uga xabilato. Haddii marka qof kale aad la share gareyso waxay ka dhigan tahay in qofkaas account-kaada access uu heli karo kadibna uu maamulan karo. Marka taas waxaa loo yaqaanaa private key iyo public key. Okay, so marka qaybta marka aynu ku dhex jirno CEX ama centralized-ka private key even waa laga maamulayaa. So waxay marka faa'iido leedahay haddii marka in case ay ka lumaan iyo private key waxay leeyihiin qayb customer support ah kuwaasoo kugu saacidi kara inay dib kugu soo celiyaan account-kaada passwordskiisa. Markaan u baahanahay inaan iska diiwaan gelino account-nada centralized-ka ah waxaad ka furanaysaa account markii aad rabto inaad ka furato account kuwa kan centralized-ka ah waxaa laga rabaa inaad iska diiwaan geliso kadibna aad bixiso documenti sida passport, ID card oo kale. Sidoo kale waxay ku weydiinayaan KYC. Centralized exchange-yadu inta badan waxay leedahay access as a custodian waxay kugu adeegayaan sida inay ku ilaalinayaan oo kale. Haddaba haddii aan fiirino qaybta labaad ee loo yaqaano decentralized-ka, decentralized inta badan waxay cagsi ku yihiin kuwii aan ka soo sheekeen. oo decentralized-ku ma jirto qayb central authority cid maamusha ma jirto account-nada. Qofka userka ah isaga ayaa mas'uulka ah labadaba private key iyo public key intaba isaga ayaa mas'uulka ah. Taasna waxay ka dhigan tahay haddii account-kaada passwordskiisa uu ka dhumo cid ku soo celin karto ma jirto ma laha qayb customer support ah. shalayba adaa mas'uulka account-kaada oo waa decentralized ayaa loo yaqaanaa. Marka decentralized-ku waxyaabo ku waxaa kamid oo kale haddii in case hantidu ay ka lunto ama userka aad ilowdo kale adiga ayaa mas'uulka ah.
decentralized haddii aad iska diiwaangelinayso sida centralized oo kale lagama rabo inaad bixiso documenti sida KYC ama passport ama ID oo kale ma bixinaysid. General waxa la yiraahdaa decentralized wuxuu u shaqeeyaa sida non custodial, yani waa midna cidna inay kugu maamulayeen. Haddii example aan ka bixino exchange-yada decentralized waxaa kamid oo kale Trust Wallet, centralized waxaa kamid oo kale Binance iyo Kraken. labada waa example kala ah centralized iyo decentralized. waayahay haddana waxaan bilaabaynaa muuqaalkeenii tutorialka ahaa. waxaan baran doonaa sida account Binance loogu furto ayaan baran doonaa. muuqaalkan ugu horreeya wuxuu noqon doonaa inaan aragno sida Binance account loogu furto, sida loo verify gareeyo, sida lacag loo dhigto ama sida looga baxo. dhammaan waxaan ku samayn doonaa step by step haddii la yiraahdo. waxaan dooranay Binance. sababtaan u dooranay maxay tahay Binance? Binance waxaan u dooranay waa company international ah, yani inta badan ka shaqeeya adduunyada ay isticmaalaan in ka badan 250 milyan users ah. waana company international ah, inta badan safety-giisa uu high yahay. okay, haddaba stepka ugu horeeya maxay tahay aad qaadanayso si aad u abuurto Binance account? okay, waxaad imaanaysaa web browser-kaada, waxaad ku qoraysaa binance.com, dan waxaa ku soo muuqanaya registration page-kan ee uu leeyahay Binance-igu. Binance wuxuu ka mid yahay exchange-yada centralized-ka ah, waxaana isticmaala in ka badan 257 milyan ee above ayaa isticmaala. waxaad ka heli kartaa 350 coins ee ka badan aad ka heli kartaa. waxaana la develop gareeyay Binance markuu waa sanadku 2017. waxaan develop gareeyay engineer Chinese magaciisa loo yaqaano Chen Benzo. Binance marka waa most reliable exchanges. so marka waxaad halkaad ku type garanaysaa email-kaada oo user-kaad ku isticmaali doonto Gmail-ka, dan waxaa leedahay sign up. okay, wuxuu ku soo saaray verification-kan, dan wuxuu ku leeyahay dooro car. muuqaal walba oo gaari ah ayaad dooranaysaa car, dan waxaa leedahay verify. uu ku verify gareeyay. so marka email-kii wuxuu kugu diray code, activation code. waxaad imaanaysaa email-kii already wuu noo yaalaa. waxaan markaan qaadanaynaa activation code-kan, copy dheh, then come back to Binance registration page, then paste code halkaa. wuxuu qaadanaya code-kii. okay, marka now waxaa u samaysanaysaa password. password-ku waa inuu lahaadaa marka 3 shuruudo. waa inuu ka koobnaadaa ugu yaraan 8, ugu badnaana 128 characters. at least waa in laga dhex helaa password-kaada hal number iyo hal xaraf oo uppercase ama capital ah. then waxaan gelinay password-keena, then waxaan leenahay next. okay, wuxuu leeyahay welcome, soo dhawow. ma leedahay qofka soo casuumay? halka marka waa optional. haddii marka aad haysato referral code ee jirto qof yani ku soo casuumay, waxaad leedahay yes. haddii aynan jirin qof ku soo casuumay, waxaad leedahay no. labada waa dooran kartaa, yes or no. okay, now marka waxaana laga rabaa inaan verify gareyno. wuxuu ku leeyahay ladies get you verified, yani verification aynu kuu samayno. halkan asaa kuu buuxiyay residency waa Soomaaliya already, way ku qoran tahay. documents laga rabana waxaa laga soo saaray isla wadanka Soomaaliya. nooca la rabo waa ID ama passport, laakiin waxay leeyihiin ID ayaa waxay tahay recommended.
nooca ugu fiican aan isticmaalayno marka waa ID. So marka waxaan leenahay continue. Waxaan leenahay continue. Okay. Markaan continue hadda marka waxaa yani aan joognaa page kale. So marka this page waxaan u baahannahay marka inaan ku verify gareyno documentigeena anagoo isticmaalayna computerkeena ama anagoo isticmaalayna telefoonkeena. Waxaa marka aad u habboon inaad isticmaasho telefoonka. Waxaa markaa samaynaysaa QR code-kan ayaad waxaad ku qaadanaysaa telefoonkaada saad u samaysato salvi fiican iyo aad u isticmaasho ID card-kaada. So marka waxaan soo qaadanaa telefoonkeena. Now marka waxaan isku xireynaa telefoonka iyo waxaan isku xireynaa computerka. Wuxuu ku leeyahay please use the phone camera to scan the QR code to connect. Okay, now mobile connected. Hadda marka uu nagu xirmay mobileka. Dan marka wuxuu ku leeyahay waxaa marka ku bilaabanaya inaad yani aad samayso verification-kaadii. Inta aanan verification aanan aadin waxaa marka aan fiirinaynaa documenti uu naga rabo iyo waxa ay aqbalaan iyo wax kale. Wuxuu ku leeyahay fadlan ID waa inuu ahaadaa mid original ah. Lama rabo inaad isticmaasho screenshot. Hubi in ID card-kaadu uusan ahayn mid damaged ah ama yani waxyaalo ayna gaarsiisnayn. Sidoo kale xogta ku taala ID-ga waa in dhammaan ay tahay mid wada muuqanayso visible ah. So markaad isticmaalayso telefoonka waxaad samaynaysaa card-ka ay waxaad gelinaysaa frame-ka adigoo yani isticmaalaya card-kaada waxaad isku aadinaysaa mobileka kaamaradiisa. Dan waxaad la soconaysaa orderka uu ku siinayo kaamarada wuxuu ku leedahay oo kale qoorta loading ku sameeyo kale ama stay away ka fogo oo kale come close oo kale yani u soo dhow oo kale. Then haddii marka aad soo marto steps-kaas aniga hadda now ma samayn karo steps-kaas because of mar hore ayaan samaystay Binance way verify gareysan yahay mana aqbalayo systemka in qofku uu dhowr jeer uu samaysto account-ka. Laakiin waxaan halkan inaan ka siiyo recommendations. Sidoo kale waxa lagu leeyahay markii aad sawirka aad iska qaadayso kale waa inaadan xiran koofiyad, waa inaadan xiran ookiyaalo ama eyeglass. Ha isticmaalin filter markaad sawirayso kale. Ha isticmaalin filter. Sidoo kale hubi inaad heli karto iftiin kugu filan. Haddii markaad joogto meel mugdi ah ama wajigaada uusan muuqanayn oo kale ma laga aqbalayo. So marka wanaad haysataa meel iftiin kugu filan inaad heli kartaa. Okay, markaad iska qaadayso selfie-ga waa in dhagahoodu ay muuqanayaan oo kale. Waa inaad ahaan kartaa yani visible. Waa in indhahaada dhammaan yani ay furan yihiin oo kale aad fiirinayso mobileka. Oo marka daad waxaa laga inaad iska ilaaliso. Haddii marka inta aad samayso waxay u badan tahay in account-ka yani lagu verify gareyn doono. Okay. waxaan ku darno haddii marka account-ka aad ka dhigato verified waxaa leeyahay waxaa marka suuragal ku ah inaad hesho yani inaad dhigan karto lacag fiican. For example marka account-ka aad dhigato yani aad verified ka dhigato kale fi'adka waxaad dhigan kartaa 200,000 daily. Sidoo kale waxaad ku samaysan kartaa withdrawal oo 200k ama 200,000 waxaad ku samaysan kartaa daily withdrawal. B2B waxaad u isticmaali kartaa kale si unlimited ah. Crypto kale waxaad ku samaysan kartaa iyadana ilaa 160,000. Marka intaas oo dhan ayaa access u heli doontaa haddii aad verify aad ka soo dhigato account-kaada Binance-ga. See you at the top. Qayb baan idin rajaynayaa guul. Waxaan rajaynayaa in lagu verify gareyn doono ID-gaada. Waxayna qaadan doontaa muddo 24 saac oo kale in lagu verify gareeyo account-gaada. وهدي أدرعه steps كأن كله وذاقي وحنرجينا إن يعني أكون كذا كون دون verified.